السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتسنتين ما أنت وأربعة وأنا تضبط بشكل بعد جانوري سنة كلا بدو كن يلحي لباتنك مقال كانوا حربا إن ندخل وداقو إذا ماذا آيس أو ما أنت قف هوين يكتوكتي كند لي مقالة مينيابوليس وحنو جين سنتي هول قلب بلارن إن يكبل لابين مقالوين كمتانا هاي سين بول إيه مينيابوليس أو شلي حتى وزيرك أمني جودها أي قيب كاهيد howlgalka oo dad la soo xirayay iyadoo ciidamada la socoto la arkayay arintaasi toogashada ciidamada ICE Minneapolis ka geysteen mas'uuliyiinta magaalada Minneapolis maxay ka yiraahdeen wasaaradda amniga gudahana maxay ka tiri waan idin la wadaagaya sidoo kale waxa jirta in gobolka Florida gudoomiyaha gobolkaasi uu ku dhawaaqay in 10,000 dad ka badan oo sharci darro gobolkaasi ay ka soo qabqabteen wasaaradda amniga gudahana ay ku wareejiyeen musuqmaasuqii Minnesota hadda Congress-ka ayuu gaaray guddiga la xisaabtanka dawladda ee aqalka wakiilada ayaa maanta waxay su'aalo weydiiyeen 3 xubnood oo Republican oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota maxay halkaasi ka sheegeenna sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 barida qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin waalida fursadan qaaliga ka faa'iideysa haddii aad qurbaha ku nooshahay jeceshayna awlaadaada doonaysa inaad ku barbaariso barashada hadalka Ilaahay waxaan ku hayaa macadka Abidalxa barashada Quraanka Kariimka ay wax ka dhigaan macallimiin aqoon xeel dheer oo la fidinta diinta Islaamka waxay muddo kooban awlaadaada ay kugu xifdiyaan barashada xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada culumta Quraanka Kariimka iyadoo sidoo kale ay baranayaan barashada asaasiyaadka shareecada Islaamka bishan waxa la qaadanayaa arday kooban ee haatan ka wac taleefanada shaashada kaaga muuqda banateen waa macadka Abidalxa barashada Quraanka Kariimka waxaan ognahay ilaa iyo markii howlgalka ciidamada ICE ay ka bilaabeen magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis oo horaantii bishii December ay bilaabeen haddana isniintii oo 5tii bisha ahayd howlgalkii ugu ballaarnaa oo ciidamo ICE oo 2,000 iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha isugu jira howlgalla ay ka bilaabeen magaalooyinkaasi in ay mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa ayna dawladaha hoose ee Minneapolis iyo St. Paul ba ay ka digayeen dhimasho iyo dhaawac halis ah inuu ka dhalan karo shalay oo ugu dambeysay taliyaha ciidamada booliska ee Minneapolis ayaa waxa uu dhahayay haddii aad howl qabanaysaan si sharcigu waafaqsan oo xirfadaysan u qabta The greatest risk to me is that there would be unrest or that there would be a tragedy that somebody could get seriously hurt or killed because of what's happening. Whatever you do, do your jobs professionally and lawfully. laakiin hadda toogasho ayaa dhacday maanta sidee wax u dhaceen magaalada Minneapolis gaar ahaan wadada la yiraahdo East 34 Street iyo halka Portland ay iska jiraan ayaa ciidamo ICE oo socdo gaarigan gaduudka oo aad arkaysaan oo qof dumar ah oo wato waliba waxa hadda la sheegayaa in ay kamid ahay dadka loo ogol yahay oo legal observerska oo dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaabaha ay sameynayaan ciidamada ICE inay la socdaan kamid ahayd ay gaarigeeda ku hor jartay ciidamadii ICE gaariga ay ka soo dageen markaasi kadibna markay ka soo dageen oo xaggeeda ay u soo dhaqaaqeen sida muuqaalka aad ka arkaysaan gaarigeedii ayay dhaqaajisay askari ka tirsan ciidamada ICE ayaa 3 xabadood markaasi xaggeeda u riday waliba daaqada gaariga uu qofku ka waday gaarigii rasaastii qofkii waa ay ku dhacday sida la dareemayo gaari baakin yeelay ayuu qaybta dambe uga dhacay qiic ayaana la arkayay
markaasi kadib dadkii goobta joogay inay duubaan ayay bilaabeen oo ay qayliyaan muuqaalka codka waan ka jaray ma doonayo in muuqaalkan lagu dhago YouTube ama baraha kale ee bulshada ay ku dhagaan marka qofkii isla goobtii ayuu ku geeriyooday qof dumar ah oo 37 jir ah waaye sida la sheegay waxaana jirtay markaasi kadib in ciidamada ICE xitaa dhakhtar meesha ka ag dhawaa ay u diideen inuu gargaar degdeg ah siiyo ambulance timid xitaa wadada maadaama ay xireen 10 ilaa 15 daqiiqo ayay ku qaadatay in goobta shilku ka dhacay ay soo gaarto markii dambe ciidamada ICE iyaga ayaa meydkii gaariga ka soo bixiyay oo ambulance saaray afayeenka wasaaradda amniga gudaha waxa ay sheegtay iyo waliba wasiirka amniga gudaha in qofkan uu isku dayay in gaarigiisa hub ahaan ciidamada ICE uu ugu isticmaalo sidaas darteedna tababarkoodii la soo siiyay iyagoo gudanaya ama waajibkooda inay toogteen qofkaasi oo ay dileen marka waxay xaqiijiyeen inuu dhintay marka waxay leeyihiin gaarigiisa ayuu doonayay gawaarida ciidamada ICE ama iyagoo wadada taaganba inuu marsiyo oo hub ahaan ugu adeegsado iyaguna waa isdifaaceen oo waa ay dileen haddaba waxaa shir jaraa'id qabtay markii arrintaasi ay dhacday kadib maayarka magaalada Minneapolis ama duqa magaalada Jacob Frey iyo taliyaha booliska maayarka ama duqa magaalada Minneapolis waxa uu yiri waxa dhacay waxyaabihii muddo aan ka digaynay oo aan ka hadlaynay waxa uu sheegay in hadda baaritaan ay wadaan isla markaana ay ogaan doonaan arrintan sida ay u dhacday laakiin haweeney 37 jir ah ayaa geeriyootay ayuu yiri waxana uu sheegay in ciidamadan aysan hawsha ay wadaan aysan ahayn mid ay doonayaan in ay amniga wadanka ay ku sugaan laakiin waxa uu yiri bulshada ayay qalqal gelinayaan qoysasna waa ay kala wadayaan haddana waxa ay bilaabeen ayuu yiri in ay dad dilaan oo naf ay jiraan isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey to the bottom of this to get justice and to make sure that there is an investigation that is conducted in full but what we do know is that a 37-year-old woman is dead and that she was shot by ICE. We've dreaded this moment since the early stages of this ICE presence in Minneapolis. Not only is this a concern that we've had internally, we've been talking about it. They are not here to cause safety in this city. What they are doing is not to provide safety in America. What they are doing is causing chaos and distrust. They're ripping families apart. They're sowing chaos on our streets. And in this case, quite literally killing people. So they are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, this was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed. dhinaca kale howlgallada ka socda Minneapolis oo ciidamada ICE ay bilaabeen isniintii in ka badan 2,000 oo ciidamada ICE iyo kuwa wasaaradda amniga gudaha ayaa howlgalkan wada shalay xitaa wasiirka amniga gudaha Christine Noem ayaa la socotay waa ay hubeysan yihiin gawaari gaashaamana waa ay wataan waxa ninka ciidamada ICE madaxda sida ku meel gaarka oo Todd Lyons waxa uu sheegay in howlgalkan muddo bil ah uu socon doono waxana uu yiri waa howlgalkii ugu ballaarnaa ebed oo ciidamada oo dhinaca immigrationka oo ciidamada ICE ay sameeyaan Minneapolis iyo St. Paul ayaana laga fulinaya. We have the largest immigration operation ever taking place right now. It's a great effort by ICE. muuqaalkan qaybta dambe sidaad ka arkaysaan waxaa ka muuqanaya meesha marka ay dadka qabtaan ay ciidamada ICE eegayaan shalay wasiirka amniga ayaa tagtay dadka fara badan ayaad arkaysa oo meesha fadhiyo iyo waliba iyadoo ciidamada salaamaysa ugana mahad celinaysa waxa ay sheegtay in howlgalkan xitaa 30 maalmood kadib haddii ay u baahdaan inay sii joogaan Minneapolis iyo St. Paul in ay sii joogi doonaan waxa sidoo kale isniintii ay sheegeen inay soo qabteen in ka badan 150 qof oo Minneapolis iyo St. Paul ay ka soo qabteen shalay lama oga inta ay soo qabteen howlgalkuna hadda wali waa uu socdaa dhinaca kale waxaan gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in howlgal soo bilowday bishii Agosto ee 8aad ilaa iyo hadda bishan January ee sanadkan cusub soo gaaray muddo 5 bilood socday oo loogu magac daray Operation Tidal Wave inay ku soo qabteen in ka badan 10,000 oo dad sharci darro ah waxaana laga soo qabtay degmooyin kala duwan oo gobolkaasi in Florida ah
dadkan sharci darrada ah oo gobolka Florida laga soo qabqabtay howlgalku waxa uu bilowday Agosto bishii 8aad kowdeedii sanadkii 2025 ilaa iyo waxa uu soo gaaray 6dii bishan January ee sanadkan 2026 waxaana lagu soo qabtay 10400 oo dad sharci darro ah sida ay sheegeen in dadkaasi 3435 kamida Guatemala ay ka yimaadeen 3331 Mexico 1353 Honduras 312 El Salvador Venezuela sidoo kale 312 halka 1249 wadamo kale oo kala duwan ay ka yimaadeen wadamadaasi lama sheegin marka waxa uu sheegay in laga soo kala qabtay ilaa iyo 13 degmo oo kala duwan oo gobolkaasi kamid ah waxa kamid ah Alajua Baker Bradford Brevard Clay Hernando Hillsborough Indiana River Orange Pinellas St Jonas Sumter iyo sidoo kalena waxa kamid ah Flushia meelaha laga soo kala qabtay hadaba waa kan gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo shir jaraa'id qabtay kana hadlayay howlgalkan waxa uu yiri ma jiro gobol kamid ah gobolada Mareykanka oo dadka aan soo qabanay in la eg soo qabtay waxana uu ku faanay dadkaasi sharci darrada oo gobolkaasi ay ka soo qabteen isla markaana ay ku wareejiyeen wasaaradda amniga gudaha si ay u masaafuriyaan. So today I can announce that Operation Tidal Wave is now hit over 10,000 arrests of illegal aliens who have been turned over to the Department of Homeland Security. Of those, 63% had criminal arrests or convictions, including violent offenders and sex offenders, although you don't have to have committed a crime to be subject to immigration enforcement. If you've come illegally, that is the offense. And so, of course, people can enforce the law. But it does show that some of these folks have been involved in a lot of really, really bad stuff. So there's no other state that has been able to do anything approaching what the state of Florida has been able to do. dhinaca kale musuqmaasuqii gobolka Minnesota aqalka Congress-ka ee Mareykanka gaar ahaan aqalka wakiilada xubnaha guddiga u xisaabsan alla xisaabtanka dawladda ayaa maanta waxa ay qabteen dhageys la xiriira musuqmaasuqa ka jira gobolka Minnesota saddex xubnood oo Republican oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota oo kala ah Kristen Roberts Walter Hodgson iyo sidoo kalena Marion Rarick ayayna su'aalo weydiiyeen waxa ay ka tirsan yihiin saddexdan xubnood guddiga baarlamaanka gobolka Minnesota u qaabilsan ka hortagga musuqmaasuqa la xisaabtanka hay'adaha gobolka Minnesota waxaana la sameeyay bishii January ee sanadkii dhamaaday 2025 marka su'aalo ay weydiinayeen xubnaha Congress-ka gaar ahaan guddiga la xisaabtanka u qaabilsan waxa su'aalaha ugu horeeyay ku bilaabay Tom Emmer oo gobolka Minnesota laga soo doorto hoggaanka xisbiga Republican-ka ee aqalka wakiiladana kamida waxa uu sheegay in ay jireen ayuu yiri ilaa iyo 1,000 qof oo dad marqaatiyaal ah oo musuqmaasuqa ka hadlay oo gobolka u soo sheegay isla markaana ay iska dhagatireen gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz isla markaana sidoo kale xitaa loogu hanjabay inay shaqadooda waynayaan ay tiri xubno dimuqraadi ayaa ku jira xitaa xubnaha gobolka u shaqeeya oo musuqmaasuqan doonayay inay shaaca ka qaadaan laakiin loogu hanjabay in shaqada laga ceerinayo waliba sabab loo yeelayo caafimaadna aan la siinaynin waxa la weydiiyay gudoomiyaha gobolka Tim Walz musuqmaasuqan inuu dhacayo ma oga ay ku jawaabeen marka bal ila daawada markii Tom Emmer su'aalahan uu weydiinayay xildhibaanadan la yiraahdo Marion Rarick oo iyadoo kamid ah xubnaha saddexda ee maanta guddiga la xisaabtanka ee Congress-ka Mareykanku ay su'aalaha weydiinayeen. Representative Rarick, I'm going to begin with you. You've been working on this issue for years. You've spoken to the whistleblowers personally. Is that correct? That is correct. You have an understanding that 1,000 whistleblowers running an account on X have come forward to expose fraud in Minnesota state agencies, and they have been entirely ignored by Tim Walz and have even been retaliated against. Is that accurate? That is correct. Even this morning, I got another message. Well, in your experience, are their claims credible or are they politically motivated against Walz? They're completely credible, not politically motivated. In fact, many of these are Walz administration employees, correct? They are actually Democrats as well. Can you quickly give us one example of the retaliation these folks have been facing? Yes, I can. In my opening statement, I mentioned that the most severe ones was that they would be fired with cause, so they couldn't have unemployment insurance, that they would be blacklisted from all state agencies, and I would
bet that it's also Hennepin County and Ramsey County, as you know, those are Democrat run, and much, much more. Based on what you've learned, Representative, over the last several years, do you have any doubt that Governor Tim Walz knew about this fraud as it was occurring? He absolutely knew that it was occurring. Thank you. The Housing Stability Services Program was estimated to cost about $2.6 million per year, but before it was shut down last October, it was on track to run about $122 million in 2025. In fact, I think they sucked $161 million out of it from the point it started in 2020 until it was finally shut down. Isn't that correct? That is correct, and Joe Thompson believes that 90% of that was fraud. Yeah. The Quality Leering Center, as uncovered by Nick Shirley, received almost $10 million in funding. Is that accurate? I believe it is. There are more than 80 autism centers in Minnesota under investigation. Is that true? I believe it is, yes. It's clear that someone is criminally complicit. You can't just let this amount of money get out of your administration over a period of 7 years without knowing. aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo